بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلهي mahadle subxaana wa tacaala ilahay baa keligii mahadle waxaan maanta idinku yeedhay waxa weeye waxaan ka adkeysan waayey waxyaalahan socdaan ka adkeysan waayey foosha xun leh ambaha ka socdaan websaytada ambaha ka socdaan facebooka amba twitterka marka hore waxaan taanidinaya horta shacabka reer somaliland sidii quruxda badneed ee nabadgelyada lahayd ay u footeeyeen oo codeeyeen waxaan taanidinaya ciidamada nabadgelyada iyo kuwa militarigaba iyaguna nabadgelyadii sugay iyo ilaahay subxaana wa tacaala nabadgelyo inugu dhameeyey codbixintii commissionkan isna taanidinaya in iyaguna ay shaqadu si fiican u qabsadeen waxa weeye ilaa intii codku la sameeyey codbixinta waxaa soo baxaya kelimado aada iyo aad u xun doorashadani aan u dareernay maalintii dhaweytay isniinta bis 16 iyo kambeynadanu gallay doodahaynu gallay maga weyn bay noo soo jeedeen waa jaraa'id badan oo adduunka ah oo kuwa waaweyn ayaa wax wanaagsan naga qoray oo dadkii inaan jirno oo ma jirta oo xaqoodii la duudsiyay haddana subxaana wa tacaala nool oo afrika ka muuqata kasoo murtire ayaa laynagu tilmaamay waxaa jira momentum fiican baa jira oo ay maanta damiirka international community ama bulshada caalamku ay aada iyo aad u dareensan yihiin inay dembi laynaga galay oona jecelna insha allahu tacaala doorashan ka bacdina inay noo midho dhali doonto oo ay noqon doonto wax laynagu qiimeeyo dalkani 27 sano xor ahaa tii adduunka oo dhan aan waxba siinin buu haddana resilient aynu dad adkaysi noqonay dumaraadiyad ka caan noqotay doorashooyin ka caan noqday africa oo qaarkood 58 cod lagu kala helay waxyaalaha aynu soo sarnay ka mid tahay waxay ka mid tahay labada xusbi oo laga cod batay baarlamaankii in haddana shir guddoonka shir speakerkii qaateen speaker guddoomiyaha jiraba ma aha waxa shir guddoonaya ciraha soo saaray guddoomiyihii baarlamaanka aanu qaadanay waa waxyaalaha aan dhici kari jirin nabadgelya nagu dhaceen haddana adduunku ay moodid inay naga jeedsadeenoo danahooda gaarka ah ay naga raaceen oo waddan aan jirin soomaaliya la yidhahdo qabaa'ila dagaalo ka socdaan oo 22,000 oo ciidamo joogaan ay iska ictiraafeen kursigii somaliland iyo soomaaliya ee un-ta aynu geysanay dhinaca qura la siiyey oo aynu tamar aynu ku ashkatoono waxayna usoo aan weynay inagoo isku habsanay waxaan doonaya doorashada inay laga baxo saasaan doonaynay doorasho lagu tartamo platforms issues mustaqbal ixtiraaf ayaan ahayn inagoo wanaagsan oo dadku kala foofay oo xaasaska faamiligu kala yihiin kala ocod ayaa laynoo keenay waxa ilaha garxajisaya hodheelkaasaa lagu shir la yidhaaho ma aqaane meel halkaasoo la yidhaaho waxaa la yidhaha marooda jeex raggii 94kii dagaalka dheliyey halka yimi garxajisyadii 94kii dagaalka ay nagu soo celiyeen halkaas horta bahashu ka qalocatay taas waxay abuurtay in qabiil loo footeeyo jeegaana samaysato la ficiltamo codkina wuxuu ku baxay qabiil buu ku baxay ishiisu mu bixin reeraa la isku sheenay de haddii reeruhu ficiltamaan oo codka lagu ficiltamo de waa la kala badayo reer baa badinaya markaa in reer baa badiya laga xanaaqa dee maaha waxaa aada iyo aada uga xumahay wuxuu ku hadlayo ninka axmed sheel waa taqaanaano markii carto waa ninkii ooye markii arrimaha soomaaliya laga hadlayay maantana wuxuu leeyahay habar yoonisay waan gumoobeynaa
haddaynu doorashada ogolaano horaan uga taliyey maalintii baan idhi polling station kasta 100 nin oo hubaysaa la dhigo xagee 1,600 oo 640 polling station habarnimis xagee ka helaysaa 100 hor dhigto towtooda dadku ku cinayo horta waxaasaa soo kiciya weeye waxa website ku yaala nin la yidhaah nin Suudan ka soo qoray isna wuxuu leeyahay gaalada Hargeysa la laayo airport-ka la garaaco burburcadeedka hala xoojiyo si berber u xiranto waxaan idin sheegayaa yaa ragga ka yimi qurba jooga ka yimi ee doonaya inay inta caruur dibadda soo dhigteen inay Somaliland masaakiinta dadka reer Somaliland inay qasgeliyaan haloo diyaar ka raacaan suurta geli maysan leena haleenahay shacbiga reer Somaliland ee soo dadaalay maanta ka soo kabtay dagaalkii sokeeye ee 94kii dadka soo celiya wixii waxaan sheegaynaa inaan maanta Somaliland dagaal ka dhicin xumaanta iyo ay dusha ka saaran tahay ku cildaystan doonaan waxa jirta rag baa intay soo taageen TV-ga presska ilaahay waxa la soo qortay buug beenbeena oo lagu footay beelahay forgery baa la soo sameeyay waxay ahayd markay ka baxeen media in la soo qabtay hadday yihiin forgeryna la keeno cidii keentay forgery soo sameysay buugta codbixinta soo sameysay hadda nek laga qaatay commissionkana la ogaado cidda bixisay intay saa yidhaaheen waa lagu shubtay ayaa dagaal ka dhacay dadka mudaharada dhigay dad baa ku dhintay ilaa maantana dibadda joogaan waxaan arrinta ogaatay inuu ahaa buug soo haray oo buugga codbixiyay ka soo haray oo gobolka saaxil ahaa waliba deegaanka taageera ciro ahaa in la soo qabtaa weey raggii press conference bixiyay ee dhimashada maanta keenay ee dadka maanta dhintay ka mas'uulka ah ee beenta faafiyay in la soo qabtaa weey 240 sanduuq oo hore loo tilmaamay oo loo tiriyay ay yiraahdeen wadan nagu celiya iyagoo nagala tashan labadii xusbe kale commissionku ayuu ogolaaday ilaa hadda 6 mid baa haro mid qor oo qaar laga helay ma jiro hal qaanad mid laga helay ma jiro laba maalmood dib u dhacday magaranaysaa in codbixintii iyo in result kala sheego waxaan arkaynaa halka in jaleec weyn ka muuqan tahay uu ka muujiyay in marka taqaanay nek koow in soo qabtaan buuggii markay ogaadeen laga xaday kii sitayna soo qabtaan kii u dhiibanay inay helaan wadan aan sharci ku shaqeynin oo sulx oo soconaya xirtajab wadan noqon maayo waxa leenahay natiijada way soo dhowdahay kursi qof oo fadhiisan lahaa nina laguma talagelin inuu keligii helo dadka rabshada laga daayan leena masaakiinta 22 maalmood aan ku dul warwareegnay campaign ku xun ku wadnay aan shaqaysan aan iskuul tagin rabshad kale oo baahnaan Soomaaliya waxa leenahay dawladda maanta joogta ee bishu harsantayna waa inuu sharci u shaqeeyo sharci inuu shaqeeyo raga ka soo bixaya ergaaban waxa leenahay Soomaaliya waxa yeeli kartaa Soomaaliya idinka u baahan idinka qaran u baahan إذا كان دكادي شقينين وضد إذين دمانين طيارة إذين من ما أنت عد أبغى قرن أو قبان أريكاوا مجرد سمعنا عندنا كبر برميس سلاس سناق لان إياه ودين لأننا مصر ما يسميان إذا كان حمانته كياني قبيلك كياني كحتية كياني منصر باسكو أبورتين ده أتكيستا إذا كان شيئا سميه علينا هاي إدي هاي شخص بجانا الدور شدنا
waana tale la isku yimaada barbaraarnay lama ogola dalkan wuxuu u baahan yahay in wada jir looga wada taliyo horumarkiisa laga tashado sharciyada la adkeeyo ixtiraafkiisi loo heli laga sameeyo shaqo si loo abuuro loo sameeyo wixii hore laga baxo aan dowladnimo ahayn qaska ahayn literally ma ahayn dowladnimo waxaan ku noolayn qolooyinka siiriga noo hayn waxaan leenahay weligiinba naqaska isku noqon jiray Somaliland iyo Walistaan waanu adkaysan doonaa kaayaga waalana waanu qaban doonaa dhibaatooyinka naga hor joogtana waan dhamaysan doonaa waxba adeer fooxa noogu rido bunka noo cabin aan leenahay anaguna insha Allah taala adoogeenu jabi doonaa aan leenahay ragga waaweyn Axmed Shal kamid yahay rag kale markaan ka xishoonayo maana dalka idinka awladan rag aan ogahay oo ku jira rabshadaha adeer bala looma yeedho maanta cidina sidoo ma jirto shakhsiyaadkan la hadlayo anagu reer Hargeysa uma dagaalamayno wariyaan sheegay ciidagada intii hore ku filan 94 tii hore ay isu qoomeynayaan marka adeer waxaan leenahay rabshadaha la joojiyo waxaan ahaan baleenaya Suldaan Maxamed Suldaan xirtaqana yaan baan baleenaya sidoo fiican u hadlay wala kala baxay doorashada wala kala baxay wala ogaaday ninka sabab Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu dilo inoo qaa علينا doorashadan way dhamaanaysaa nabad bay ku dhamaanaysaa cidii Ilaahay u qoray way helaysaa halkaas aan hore uga socono insha Allah taala waxaan ka xumay inaan iloobay tacsidii dadkii dhaawacmay Ilaahay subhanahu wa ta'ala aqsaaw bogsadeen dawladdu waxaan leenahay dadka hadar yeesho dadkii dhintaan waxaan sameeyay iimaan waxaana xilku saaran yahay if iyo aakhirana Cabdiraxmaan Irriyo taageerayaashiisa dadku waxay ay saareen أنا لما تشربان دعاء مرنا هنا يما يدمن وقتها ما كان وحويه تذكر حكى بينا إلهي بقى أخرك الحساب تمن دونا وفك أنت بقى تذكر أبوري في الملا أبوري في المهر تذكر كعي أي دوش كسارن تاي سمري ما قدين إلهي نقصي سلام عليكم.